dalkan iyo maanta waxa taagan iyo muhiimadda taagan horta dalkan sidiisaba dhibaatada iyo duruufaha 30 sano la soo dhaafay dalkan ka jiray nooc kasta iyo heer kale kala duwan kasta ha lahaadeen inaan beesa haysanin iyo inaan dhul tacbada qabin iyo inaan bad qabin inaan biyo haysan inaan faqrinahay ma ahayn dalkani waxa uu beelay oo dumiyay markuu dumay kadibna ku sii hayay meeshiis uga dhaqaaqi laayay waxa waaye siyaasad waay haddaan siyaasadda laga heshiin waxa kale oo dhan waa adag tahay in laga heshiiyo siyaasaduna waa qaabaynta mustaqbalka ummadaane ka gaabis iyo qaris iyo geedo ku dugaal iyo muxuu ahaa anaa ku og iyo malaha waa badeeco suuqa siyaasadda inta la keeno dadka laga iibiyo u baahan badeeco fiican haday tahay waa la iibsanayaa badeeco fiican hadaanay ahaynna waa soo aragna badeecada aan fiicnayn sida ay oo waliba markii badeeco fiican ayadan ahayn haddana dadka in lagu khasbo lagu dayo waaba kasii dhib badan tahay kasii xaraartahay dalka marka ayadoo xaaladiisa sidaas ay tahay xaqaa'iq ka jira uu saas yahay wada dheer uu soo maray muddadii 20 sano ee waliba ugu dambeysay marba meel uu ka soo gudbayay oo bulkeeti la dul saaray oo soo ahaa maanta aad iyo aad ay nasiib darro u tahay niyad jab u tahay in bulkeetigii kale meeshii laga saari lahay bulkeetiyada hore saarnaa qaar ka mida la sii qaadqaadayo darbigii yaraayo dhisnaay meeshiisii loo sii celinayo sii socdo weli arrin aad iyo aad looga xumaado waay waxa ugu muhiimsan oo hadda aniga ii muuqdana waxay tahay dalkaani nidaam yar iyo qawaaniin iyo aan dhammaystirnayn iyo dastuur aan dhammaystirnayn iyo qaab dawlad dhisida oo dhammaystirnayn oo soo socotay ayaa ka socday kalsooniyay ku socdeen inta badan maadaama oo qawaaniintii ma dhammaystirno dastuurka dhammaystir leeyahay warseen wax yeelnaa inta la yiraahdo saana habboon aan yeelno wadadan aan marnay ku socotay dadka in loo sheego meesha laga yimid meesha la joogo meesha loo socday ku salaysan waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ixtiraam badan aan u hayna madaxweynaheeni waaye sharciyada uu leeyahay dalkan asaa madaxweyne ka loo doortay loo caleemo saaray barqadi laakiin mushkiladda oo meesha ka jirta waxay tahay inuu dadku waxba u sheegin dadka inaanu wadada loo socdo iyo duruufta lagu jiro si kasta u xaraaraato haddii ay doonto duruufta lagu jiraay si kasta u xaraarado god iyo ninka loo wada lama kala qariyaa la yiri dadka Soomaaliyeed waa in loo sheegaa hadday dhib leedahay xataa waa in loo sheegaa laakiin inaan loo sheegin oo mar walba dadku ay banaankaas oo warka ka maqlaan oo markaas warka dadka isla dhaxmaraan mid run iyo midaan run ahayn haddana la sii suubiyo oo la sii waxay jahwareerku ku sii kordho cabsida kororto shakiga iyo maxaan ku raadayay kala muxuu ahayo susnaanta ay kororto waxa waaye dhibaato weyn waay marka in badan oo horena waa ka hadlay aad inaan ugu celcelin mar rabo madaxweynaha dadka hala hadlo waa ku celinaynaa mudana madaxweyne adiga oo mahadsan muxuu ahaay dadka la hadal waxa jirana u sheeg dadka la hadal xaaladda jirta u sheeg hadday macaantay guula tahayna u sheeg oo u cadday si ay ugu qanci karaan hadday kharaar tahayna u sheeg labadaba ayaga iska leh dalkuna waa dalkoodii dantuna waa dantoodii laakiin maalin walba sida hadda madaxweynaha uu dhahay Abiy Ahmed inuu noo sheego hadda maalin wadna baarlamaankiisa markuu Abiy Ahmed furay waxyaabo kale oo kasii dhib badan oo cusba in Soomaaliya dekad aan marka ku xirana kama rabnaa cusbaan ka rabnaa inaan ka dhoofino iyo wax la mid iyo waxyaabo badan laga sheegay waxaasi dawladayna kama hadasho ma sheegto maxaana loo sheegeen hadiiba ay tahay dawlad inay heshiis la gasho dawlad kale oo ay cilaaqaadkeeda hagaajiso oo masaalix badan oo la wadaagayo ay abuurto waa waxay dawlad u tahay laakiin nidaam baa loo sameeyay wadadaas in la soo maraa raba nasiib darro weyn waay taas waa oo nahaysato annaga Itoobiya cilaaqaadkeena bariyada basoo xataa soo hagaagay taariikhdii dibka badnada soo dhawaanaysay meesha ka sii baxaysa waa shakiya si abuurmay hadda iyo si kala socod iyo ka si kala shaki baraydo maxay damacsan yihiin taariikhdii hore ma ruma mar walba way soo noqnoqonay qodobkaas marka waa saas madaxweynuhu maalmood baarlamaanka hor yimid oo la hadlo baarlamaanka waa fursad waa munaasabad dastuuri ah oo madaxweynuhu fursadeeda uu leeyahay mar baarlamaanka furitaankiisa intuu soo hal mar uu leeyahay waxay ahayd baarlamaanka inuu la hadlo wixii wanaagsanaa inuu soo qabto u sheego wixii gaabis oo ka jiro u sheego
wada shaqaynta iyo asiga wuxuu diyaarku u leeyahay ka kaalmaynayo inuu u sheego wax badan inuu ka hadlayo madaxweynaha shacabka uu la hadlay shacabku markay soo doorteen iyo gabdhihii ay soo doorteen hor fadhiyay lama una hadlay ee shacabku uu la hadlay dhalinyaradu la hadlay ciidamadu la hadlay hadda madaxweynuhu inuu meel saxaafadda intuu u yeerto waxaas kala hadlay ahayd munaasabadii dastuurigeeda baarlamaanka wixii laga hadli lahay ma ahayn waxa intaas dheer waxa uu ka wada hadlayna waxa uu sheegana madaxweynaha wax badan oo kamid su'aalo badan ka taagan madaxweynuhu wuxuu sheegay dalkan sanadkan 24 shil ama 24 weerar oo amni darro ah inay ka dhacday jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa golaha amniga riboorka soo saareen 180 jarjara ku taalo inay sanadkan 4 bilood ugu horeysay inay magaaladan muqdisho ay ka dhaceen muqdisho kaliya 180 iyo 486 waxay ahayn ma garanay 80 iyo xogaa hatta waa public domain meel kastay taala soo heybadii iyo sharaftii iyo karaamadii madaxweynaha meeshaas soo kuma nusqaamayso محمد عبد الله فرماجة ما وحكي نسقامي أنا قدامي أنا نسقامي مدعوينه إنه حفظي وهيبت لي عرنا مدعوينه ذاتك الله هذا أو مركو الله هذا يقرأ لي هذا قبله يقرأ الله هذاني هو يدي لشيء يعنق إلى هذا السائل مركب إلى وحنا نجعلن إلى يوش بيه تريو كل إنه نقضة والمدعوينه وهذا المدعوينه وهذا سأقولنا مركب هذا المدعوينه ينوقش بيه هذا إني يعني عيبوبني إني نجارت وأرن آدي آد ودب بدن واي marka waxaan leeyahay madaxweynaha iyo tiimka la shaqeeyo oo kalkaaliyaashiisa arintaas muxuu ahay aad iyo aad muxuu ahay allo waxay arinta doorashada waa ka hadlay laakiin waa hor taagan tahay mushkilad haday ku hor taagan tahay xalay rabtaaye inaad ka sii jeesatid xalkeeda ma aha hadaa inta sii jeesatid hadana way ka hor imaanay mushkiladu waa taagan tahay qadiyada doorashada ee 2020 oo soo muuqda muxuu ahaay meeshay ay ku ekeeday ka hadliday mudan tahay xalay mudan tahay qof iyo hal institution oo dawladdu leedahay maxalli kari shalay institutions xadidan oo dawladdu leedahay xalli kari oo isku keeni kari oo maxaan ku sharciyeeda meel mari kari oo dhulka uu si gogol xaari kari oo diyaari kari muxuu ahaay jawi muxuu ahaay saxa maanta waa ka timid jawigii ma dhinno ya jawigii ma dhinno wixii lagu maamaa jiro guda qarsi dhamaan la dhihi jiro waaye guda qarsi waa dhamaada hadda waa in xaajada laga tashada dadka wakiilka ka ah oo ayagu ay siiyeen mandate-ka ama ikmada waa inay ka hadlaan waa in la ogolaada odaga reerka u weyna odaga isku keeni lahayd muxuu ahaay qoyska dhiraay bal aan hadalna reerka xagee loo guuriyaa waaye maanta qaanuun iyo dastuurkii 4 bilood doorasho ay ka dhiman tahay aan ku xalinaynaa kaliya howl sahlan ma aha qaanuuna la dejiyay wax yar ka dhiman rajaynayna bariyaa soo socda in la dhameystiro in la dhaqan geliyaa qaanuunkii waqti dheer u baahneed waa dhib badan tahay laakiin haddana dadka hadday isku yimaadaan oo lagu heshiiyo leeyahay qaanuunkan dhaqan gelinayna maxaan ka dhaqan gelin karnaa A B C aan ka dhaqan gelin karnaa D E F ba ka dhaqan gelin karnaa dib waa talo meel noo dhiga ee walax kale aan aadna waa talo laakiin sidaan anagoo gacmo isugu kaan saaran yihiin oo u taagan sida aan u sii socono u sii hadaafeen haddii aan qarki ku tagno qarkaan ka dhacayna lama yaqaan waxa dhacayo bisha November iyo October inay doorasho dhacday December baarlamaan inuu joogay January diyaar garow in la galay February 8 madaxweynaha in la doortay haddii intaas waxa aan rabnaa ay dhici waayaan waxaan soo 20 sano la soo dhaafo waxaan soo aragnay ma naqaano hadda ka hor wallahi nagu dhacday oo taarumka inta iska dhamaad ayna waxba la qabanin yaa saanaana loo gudbo si aan dhahna ma naqaano taarumadu marmarka qaarkood waa dhibaatay lahayn waa dhib badnaa jireen maareyntooda waa dhib xilliga kala guurka maareyntiisu mar walba waa dhib badnaa jirtay laakiin ama doorasho dhacayso waa loo jeedo doorasho socotay ama jidkay ku soo jirtay baarlamaanka bedeli lahay waa joogay markuu waqtigiisa dhacay ama jidku ku soo jiro waa soo muuqdo waa ka soo socda waa yimidaan la dhahay madaxweynihii bedeli lahay waa joogay ama waa soo muuqdo sidaas oo kale maalintaas la doona xilligiisa waa sidaas la dhahay intiiba lama doorasho ma dhacay mise ma dhacaysa su'aal ka taagan tahay doorasho ma dhacay mise ma dhacayso yaa su'aashu taagan tahay say u taalaa iyo intay ka dhacay iyo
yaa maamulaya iyo waxaasoo dhan waa su'aalo aan jawaab loo haynin lana gaarin waayo markii horta albaabkiiba ma furo albaabka in la furo mudana madaxweyne albaabka fur adaa reerka oday u ah isku jiriyaan leenahay haddaa isku jiri weydid oo doorkaas dastuuriga ood leeda aad qaadan weydid Soomaaliya iyo dadka siyaasiyiin meel inta gacanta la isa saarto la fariisan maayo shaqaa la qabanaa waa la ordaa wadadii saxdeed hal aada ama wada lagu habaabaya hal aade laakiin la fadhi maayo dadku fadhi maayaan madaxweynaha waa ugu celinaynaa mandate-kaada inta ka dhiman xor madaxweynaha tahay talaad leedahay laakiin maalintuu mandate-ku dhammaado haddaad si fiican oo leegsigaaga qurxoon uga turjumaysa aad u diyaari weydid dadku inta tashaday wax samaynayaan madaxweyne talada dalka ee lagu aaminay lagu dhiibay ilaahay hortiisa oo ku tuka jaamacadda gacanta u saartay ka soo bax waajibkaadii gudo tahdiid iyo caay iyo aflagaad iyo annaga siyaasiyiin aan nahay haddaan beri dalka usoo tali jirnay maanta uma talino laakiin siyaasiyiin jooga waayo aragnimo leh aqoon leh faham leh aaminsan inay wax badan ku kordhi karaan ma rabno dalkan inuu dib u rimcado ma rabno marka aqalka maanta markii ugu horeysay oo hay'adaha dastuuriga mid kamid ah ay wada meel ay farta ku fiiqdo wax badanaa ka dhiman laakiin talaabo weyn oo dheer oo dhinaca saxda loo qaado waa talaabadaas sida aan naqiinay waxaan ka digaynaa in haddana aqalkaas inta la dhaxgalo lees qabadsiiyo leeska hor keeno balaayo laga shaqeeyo soo ku dumi lahaa asiga laga shaqeeyo marar badan oo hore wixii aan soo aragnay waa ka digaynaa waqtigeediina sideedaba aslanba uma fiicneen waqtigeediina lama joogo dowladda waxaan leenahay xukuumadda madaxweynaha hay'adaha sharci dejinta ha ka dhex baxaano yaani ku dhex rafanin oo yaani balaayadeeda ka shaqaynin farahooda iyo raadkooda iyo saantooda yaan lagu dhex arkin warqadda waxaa ku qoran labada aqal ee baarlamaanka in ay muxuu ahay wada tashanayaan iswarsanayaan ka wada hadlayaan wixii masiir war kale oo aad mas'uuliyad ay ku jirto oo qurux badan waa laakiin qadiyada doorashada meeshay ka istaageen aqalka sare ee baarlamaanka waa ku ammaanaynaa waa ku bogaadinaynaa gudoomiyihiisana si gaar ah ugu sii ammaanaynaa oday Soomaaliyeed oo xilkas ah oo dareemay culayska soo socda waay garab istaagidu mudan yahay madashu waa ku garab taagan tahay mowqifkaas hadii alla yiraahdo insha Allah guusha waa la isugu faanaa waa la wada qaataa waxba maalin baan maxalka saaska iri moogtaa la yiraahdo guul darrada markay timaado far isku fiiqfiiqa imaana waxaan maalin walba idaacada u taagan oo la hadlaynana far isku fiiqfiiqaas inuu imaanin waa ilaahay qadartiis far isku fiiqfiiqaas inuu imaanina ayadoo garbaha la war madaxweyne muxuu ahay Sheekh Shariif Khayr Allah si waa kana duruufo madaxweyne dalkan uga soo ay waa la ogaay meesha uu igu dhiibay waa la ogaay meesha aan anigana madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo ugu dhiibay waa la ogaay war haddii wax la xoganayo oo maalmo iyo bilo iyo sanado yar lagu sii darsada la leeyahay yaa nooga haboonaanahay annaga inaan dhaano yaa heer cad barqo adduunka dhan oo u jeedo Soomaaliya dhan u jeedo soo intaan gacanta ka qabana madaxweyne waa ku kaasaay garabkaaga la war madaxweynaha la shaqeeyo ka bacdina waa facts cadcadan hayna inaan la shaqeynay dawladda dhammaanteedba baarlamaanka hadii mucaaradada ugu imaarataan ka hor istaagnaan ayaan mucaaradin laga leexda ha socota adhahnay walax kale hadii meel kale laga haystaan hal la daayo ra'yi hadii meel laga sii rabaan hal la siiyo ayagoon waliba na weydiisanin fiiri ayagoon xaq waxaan u leeyahay meel intaan fadhiisano annaga dawladda carqaladeeyna hadii waxna weydiistaan wax la qabanayna laakiin wax xumaanaya marka u jeedid cidna laga ma sugayeen xumaanina la dhaha Soomaaliya maqal waa la garanayaa baarlamaanka waa la garanayaa waxa ka laga dhaxyiro waxa laga dhaxsuubi dhammaan waa la garanayaa inta jeeron tala dhiibna waa la garanayaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed u sheegay talooyinkaas oo dhan lama weydiisanay annaga naga soo go'day niyad samaanteen maanta niyad samaantii wali qabnaayo taladii aan wali diyaaranahay inaan bixin laakiin waqtiga waa soo dhamaaday ma garanayno sabab aan u leexleexno loo maarmarto waxaan leenahay waa u ducaynaynaa waana rajo fiican waa ka qabnaa madaxweynaha xukuumadda oo ra'iisul wasaaruhu madaxda ka yahay labada gole ee baarlamaanka wax fiican inay ka yimaadaan laakiin shacabka Soomaaliyeed idinka weyn
walax badan oo dhib badanna way soo mareen kuwa idinka dhib badanna horay ula soo tacaaleen oo maxaan ku rahdaa ay la soo macaamileen ha sugina maalinta shacabka uu idinka hor imaanayo oo sida hadda xaaladdu ay tahay hadday sii ahaato aanan dheerayn ayadana ma dalbayno mana rajaynayno in maalintaas la gaaro laakiin waa amrul waaqic waaye 30 sano niman dalal soo xukumayay yaa barqacad ayadoon hal xabad la ridina jidka lagu diray xabad in la ridi maayo hadda annagu tala aan leenahay ra'yi aan leenahay annagu xabad lagu ridi maayo dawladda ayadii keenay in xabad la rido